iskala hadlay maxaa jiraan ku iri maxaad iisoo wacday aniga waxaa kuu soo wacday buu ugu dhahay maxaan kuu sheegaa iguma dhihinin raali noqo waa kaa qalday iguma dhihin maxaan kuu sheega qalad baa sameeyey ma dhihin waxaas maxaan kuu sheegaa iyo waxaasaa samaysay calashaan barnaamijkaasaa samaysay oo aan anigu kaaga tegay ima dhihin wuxuu iska soo jaraa waa ku jecelahay waxaana doonayaa inaan maxaan kuu sheegaa isku soo laabano ana telefoonka waa iska dhiga sababto lama hadli karinba hadalkiisa markaa maqlaba dareenkay kuu isbedelay inkastoo aan markii hore is adkaynaya xoogaa aan si samarsiinayay markaa hadalkiisa maqlay dareenkay kuu isbedelay telefoonka waa ku dhigay maalmo markay kasoo wareegeen waxaan is dhahay ninkaanito hadda wuu kuu soo laabtay wuxuu rabaa inuu maxaan kuu sheegaa xiriir kula sameeyo bal horta warka uu wado sheekada uu wado kasal gaar waan la hadlay marka waa la xiriir waa waraystay waan arkay inuu maxaan kuu sheegaa rabo inuu hadal ila sameeyo sheeko inuu xiriir ila sameeyo aniga qalbigayga niyadeyda markaas waxaa kusoo dhacday ninkaan maxaan kuu sheegaa shalay wixii la oged kuu sameeyey mar dambena ma aamini kartid aaminaa dambe adigu qalbigaaga uma haysid laakiin asaga waxaa ku samayn kartaa tu asagu shalay kugu sameeyey tulamida bas waxaan ku yiri haye wax kasta oo maxaan ku sheegaa qalbigaaga ku jira anigu wax kasta waa iska ilaaway waxbana iskama ilaawin wax aan ilaaway ma lahan wuxuu igu sameeyey taakaan u xasuustaa laakiin asaga waxaan ku dhahay waan ilaaway waxaa igu samaysay haddana wax kastoo adigu diyaar la tahay baan diyaar la ah bas sidii uu igu soo noqday sidii baa iskula hadlayna anu wax niyada iyo wax qalbi oo aan u hayaa midna ma jirto wax dano aan ka leeyahayna ma jirto balse waxaan ola socdaa oo keliya asaga marakan haatana waa isla soconaa waxaan ola socdaa inaan asaga maxaan kuu sheegaa dhibaateeyo bas marka marmarka qaarkood markaan aanu gadaal iskugu fikiro waxaan ku weydiiyey hadda la socotaaba haddaaba la socdaaba marka anugu hadda gadaal waxaan markaa isugu fikaray waa u sheegay asaga waxaan ku yiri walaalo anugu qalbigayga maalin horu dhaawacmay mar horuuna dhintay adigana waxba kuuma hayniyad sababtu waxaan ogaaday haddaan asaga shalay tuu igu sameeyey anugu aan ku sameeyo beri anigana inay iga daba imaan karto marka waxa u sheegay inaana waxba niyad u hayn inaana qalbigayga ugu hayn intaasoo kaleeto oo kalsooni ah ama maxaan ku sheegaa naxariista ama jacayl midna inaana ugu hayn laakiin asagu ma rabo inuu hadalkayga intuu dhagaysto iga haro saacad kasta inuu soo wacdo rabaa markasta inuu soo raadiyo rabaa haddaan telefoonkayga block ka saaro meel kale inuu iga soo raadiyo ama telefoon kale isu samaysto rabaa aniguna waxaan ku sheegay waxaan dareemayaa xanuun markastoo aan asaga arkaa waxaan soo xasuusanaya wuxuu iigu sameeyey ama sida uu iila dhaqmay hadda marakan anigu asaga waa u sheegay inaanu waxba dan ka lahayn laakiin asagu ma rabo inuu iga haro facebooka block haddaan ka saaro mid kaloo iisu samaysanaa haddaan maxaan ku sheegaa whatsappka ka saaro telefoon kaloo iisu aaway naagtii kaa raacay wuu qabaa naagtiisii way joogtaa ma isagoo ku qaba oo ku khiyaamay ayuu haddana ku sii socdaa feeraha ugu tirsaday haa isagoo maxaan ku sheegaa waxaasoo dhan igu sameeyey iyo waxaasoo rafaada isoo marsiiyey uu haddana saa iisii daba socdeen marmar qaarkood naagtiisii anigu waa isnaqaanaa friends baan ahaa iyadu laakiin waxa naga dhexeeya ma garanayso marmar qaarkood waxaa is dhahaa intaa la sheekaysatid oo waxa oo kula sheekaysatay screenshotka qaaday ayada ma u dirtaa asaga meel kale problem ha uga imaaday intuu adigu dhibaateyn lahaa qalbiga dhaawayna ma runta u sheegtay walaal qaaliye waa u sheegay walaal waa u sheegay laakiin ma fahmayo okay adigu ninkii hadda rajo ka qabin oo walaal qalbiga dhaawaya iska daa walaal waxba ku ciyaarin bushra aaway horta qof kasta jacayl uu soo maraa jacayladuna way kala xanuun ku leeyihiin kad hadda dareemayso mid ka daranba qof kala dareemaya qofba waxbuu dareemaya ma fahantay laakiin aarsigu ma fiicna waxa aarsiga la dhahdo ma fiicna diintuna ma ogola wax wanaagsan diin ahaan iyo dhaqan ahaanna maaha
laakiin ninka inkastood ka fogaan karto ka fogow waa ninka ay waa soo qabanaa dejiya qofkaas isoo sheegay magaciisa waa qofka maxaa haytay allahuma salli calaa maxamed dee isagoo xaasla ah oo ku xumeeyey weli ku daba socda ma fahante marka niyadaada ka saar iska cafi dar ilaahay oo cafi waxba gabadhiisa iyo reerkaas waxba ha dumin gabadh kaloo walaashaayo baad usii geysanaysaa xanuunkaad martay adigu mid lamida marka walaal qofna dhib ha u geysan waxaad samaysaa noloshaada wado nolosha cusub soo dhaweey qof wanaagsan baad helaysaa qofku wanaajiyaad helaysaa wax ku dhawa ilaahay kuma tuso aamin walaalo anigu hadda isaga maxaan ku sheegaa waa u sheega wax kasta jaac wuuna ogyahay inaana hadda isaga wax dana ka lahayn laakiin sababta waxaan fahmi la'ahay wuu ii daba socda ilaa iyo hadda